dhagayaraha iyo sirta ku qarsan waxaa laga yaabaa inaad si joogto ah cuntada iyo shaaha ugu darsato si aad ugu hesho caraf iyo dhadhan, balse maantu waxaan kuu sheegi doonaa sirta kale ee ku qarsan dhagayaraha, faa'iidooyinka caafimaad ee laga helo iyo cudurrada lagula tacaalo. haddaba intaan u gudagelin waxaan si gaara kaga codsanaa inaad falwi soo dhahdid say dhiirigelin igu noqoto, sidoo kale muuqaalka laagsaa si uu dad badan u gaadho. sidoo kale qaybta hoose commenti waxaa ku soo qortaa halkaad iga daawanaysa. mahadsan. dhagayaraha waxaa ku jiro maado aad iyo aad muhiim u ah ee loo yaqaano eugenol. maadadan waxay ka hortagtaa ama ay la dagaalantaa jeermisyada jirka soo weerara sida bacteria, viruska iyo fungi. sidoo kale waxay ka hortagtaa caabuqa jirka. maadadan waxay kaloo ka hortagtaa amaba jirka ay ka saartaa walxaha sunta. waxay kaloo ka qayb qaadataa bogsashada dhaawaca ama boogta jirka. sidoo kale dhagayaraha waa xanuun baabi'iye dabiici ah. inta badan waxaa lagula tacaalaa caabuqa iyo xanuunka ilkaha, gowsaha iyo ciridka, waayo waxaa ku jiro maado xanuun baabi'iye dabiici ah. sidoo kale jeermiskana ka hortagto ee loo yaqaano eugenol. sidoo kale dhagayaruhu wuxuu aad ugu wanaagsan yahay dadka leh macaanka amaba sokorta, waayo dhagayaruhu wuxuu hoos u dhigaa amaba xakameeyaa heerka sokorta dhiigga. sidoo kale dhagayaruhu wuxuu aad iyo aad ugu wanaagsan yahay caabuqa ku dhaca kala goosyada jirka sida riixa iyo rheumatismka. dhagayaraha wuxuu la dagaalamaa amaba ka hortagaa jeermisyada jirka soo weerar sida bacteria, viruska iyo fungi. sidoo kale wuxuu aad ugu wanaagsan yahay bakteeriyada keenta gaaska ee loo yaqaano helicobacter pylori. wuxuu kaloo sare u qaadaa amaba u xoojiyaa difaaca jirka. sidoo kale dhagayaruhu wuxuu aad ugu wanaagsan yahay habdhiska neefmareenka, gaar ahaan dadka qabo hargabka amaba duriga, qunfaca iyo neefta. dhagayarahu wuxuu kaloo aad ugu wanaagsan yahay lafaha, wuxuuna ka hortagaa cudurrada ku dhaca lafaha, waayo waxaa ku jira macdanta muhiim ku ah lafaha sida potassiumka iyo calcium iyo macdano kaloo muhiim u ah lafaha. dhagayaraha wuxuu qani ku yahay nafaqada jirkeena muhiim ku ah sida borotiinka, noocyada kala duwan macdanta sida potassiumka, ironta, calcium. waxaa kaloo qani ku yahay noocyada kala duwan ee vitaminka, vitamin A-ga, vitamin C-ga, vitamin E iyo vitamin K. waxaa kaloo ku jira noocyada kala duwan ee vitamin B complex sida thiamine, riboflavin iyo niacin. guud ahaantooda waxay muhiim u yihiin caafimaadka jirkeena. wax walboo wanaagsan oo caafimaad leh haddii aad si xad dhaaf ah u isticmaashid waxay kuu keeni karaan dhibaatooyin caafimaad oo badan. haddaba haddii aad dhagayaraha si xad dhaaf ah u isticmaashid waxay kuu keeni karaan calool xanuun iyo shuban. sidoo kale waxay kuu keeni karaan xasaasiyad ama finanka maqaarka. waxay kaloo keeni karaan dhibaatooyin ku yimaada ciridka iyo afka sida barar iyo gubasho amaba olol afka ayay kuu keeni karaan. waxay kaloo keeni karaan haddii aad xad dhaaf u qaadato dhiigbax, waayo waxay hoos u dhigaan xinjirowga dhiigga ayay hoos u dhigaan iyo dhibaatooyin fara badan. haddaba su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay xaddi intee leeg ayaa lagaa doonaya maalintii inaad qaadatid? sidee loo isticmaalaa? waqtiga ugu fiican ee la qaato si aad u hesho waxtarka dhagayaraha? waxaa wanaagsan inaad si saxana u isticmaashid. dhagayaraha 3 qaab ayaad u isticmaali kartaa: inaad biyo ku karkarisid oo shaah ahaan u cabtid, inaad cuntada ku darsatid, iyo inaad asigoo sidiis ah aad u calaalisid. marka sidee u isticmaali kartaa? mar walba waxaa loo baahan yahay inaad 2 midh oo dhagayar ah inaad ku karkarisid biyo aad shaah ahaan waad u cabi kartaa. sidoo kale haddii uu budo yahay waxaa wanaagsan 1 qaando ama macalqo yar 1 qaando inaad biyo ku karkarisid. sidoo kale haddii aad sidiisu cunaysidna waxaa wanaagsan 2 midh inaad ku qabatid gooska aad tartiib qunyar aad u calaalisid. mar alaal markaad cuntid ama shaah ahaan u cabtid waxaa wanaagsan inaad biyo badan aad cabtid. su-aasha kaloo isweydiinta mudan waxay tahay toddobaadkii ama wiigii ama isbuucii meeqa jeer ayaad qaadan kartaa? isbuucii waxaa wanaagsan 3 mar inaad isticmaashid adigoo u isticmaalayo habka aan soo sheegay si aad u heshid waxtarka aan soo sheegay. fadlan waxaa kaaga digayaa
inaad si xad dhaaf ah aad u isticmaashid waayo wax walbo caafimaad leh ama wax walbo caafimaad leh haddii aad si xad dhaaf ah u isticmaashid xaaladaada caafimaad ayay saameyn karaan. intaas kadib haddii aad doonaysid inaad ila soo xiriirtid nambarka whatsappka waxaan ku soo qori doonaa qaybta hoose comment ayaa ku soo qori doonaa halkaas ayaad igala soo hadlaysaa